بسم الله الرحمن الرحيم وقتigan dambe waxa badan magaalooyinka dhalinyar diin ahaan iyo damiir ahaanba u dhimatay oo toori buu qaadanaya ambaastorad buu qaadanaya qaarkood qori bay qaadanayaan qaarkood waxay qaadanayaan bangad wadada istaagayaan waxay leeyihiin waxaan sameeynaa baraanki iyo wax maaragtay dadka lagaga qosliyo waxay cayrsanayaan qof waalid ah oo daa waxay cayrsanayaan mid alaab iska xambaarsan oo iska culus waxay cayrsanayaan mid tamar yar oo iska miskiin ah dhibaato aad u badan ayay bulshada iyo dadka ku hayaan dhalinyartaas waa dad damiirkii ka dhintay oo markaad aragtay say u tacaamulayaan iyo dadka dhibaataysan oo ay dhibaateynayaan laga yaabo maamo weyn oo meel maraysa inay kula soo ordaan oo ay kufto laga yaabo mid maaragtay iska duruufaysan ama iska xanuunsan inay kaga naxsadaan arintaas dhowr qodob baynu ka oranaa qodobka koobaad horta dhalinyartaasi ilaahay ha ka baqaan hana xishoodaan hana ogaadaan nabiga kaleey salaatu wasalaam inuu tilmaamay laa yanbaqi limu'minin an yurawwi'a mu'minan ama laa yahillu limuslimin an yurawwi'a musliman qof muslima uma banaano inuu qof muslima aw argagax galiyo nabiga kaleey salaatu wasalaam qodobka labaad ha ogaadaan arintaas cuquubo adduunyo mid aakhira labadaba way kaga imaan karaan dadka laga nixinayo ishooda baa gali karta nixitaankay ka naxaan bay wax ku yeeli karaan arintaas ilaahay ha uga baqaan qodobka saddexaad ha ogaadaan wixii halka ka soo gaadha inay yihiin waxay ayagu isu geysteen dadka qaar baa hubaysan qaar baa laga yaabaa inay iska diyaarsan yihiin oo awalba is ilaalinayeen marka qof mid kula soo ordo ama baastoorad kula soo ordo hadduu adiga babkaaga siiyo ku dilo ogow dhiigaagu inuu hadur yahay oo shareecada xataa waxba ku yeelan doonin oo baraankii buu sameynayay iyo dadba kaga qoslinayay waxba ku tarimayso waxaynu u dambaysiinaynaa in loo qastiyo oo lagu talagala dadka in laga qosliyo oo ujeedka sida laga dhigo ayaa xataa waxa ku soo arooray waciid aad u daran nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu sheegay qofka waxyaalo u sameeya si dadku ugu qoslaan wuxuu nabiga kaleey salaatu wasalaam waylun lahu hoog baa u sugnaaday ama waadi naareed buu leeyahay waylinta laba macno way leedahay marka arintaas arin khatar weeye dhalinyartu ha ka waantowdo hana laga waana galiyo wallahu a'lam sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam ajma'in